marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib qofka aan la hadlaya waa adiga qudhaada adiga hadda qoraalkan akhrinaya qudhaada ayay kugu socotaa qormadaydan waana ku muhiim inaad si taxadar leh oo deganaani ku jirto u akhrisid ogowtani ma aha maaweelo balse waa xaqiiqo ka hadlaysa safar lama huraan u ah noloshaada sida uu lama huraanka adiga kuugu yahay ayuu aniga qudhayda iigu yahay mahuraan balse iima cadda inaan noqon doono isku duulimaad inkastoo safarka aad ku qasban tahay haddana waxaad ku baxaysaa casuumaad laguu soo diray oo muddaysan casuumaaddu waxa ay leedahay wakhti go'an oo aan waxba ka beddeli karin kana cudur daaran karin waa qasab in aad dhoofto marka la gaaro ballanta ku qoran warqadda casuumaadda in aad diyaargarowday iyo inaadan diyaar ahayn macno ma samaynayso diyaaraddu waa ay ku qaadaysaa xaalad kasta adigoo ku sugan daqiiqad walba saacaddu waxay ku sii siqaysaa wakhtigii aad safri lahayd haddana adigu marnaba ma ogid goorta aad bixi doontid dhowaa iyo dheera kuuma kala cadda goorta aad dhaqaaqayso hase yeeshee mar walba safarku waa kadis wuuna murugo iyo xanuun badan yahay dhabtiina waa lagugu dul ooyi doonaa haddii aad nasiibkaas yeelato inta badan adigoo aan macsalaamayn dadka kuwii aad ugu jeclayd adigoo aan isku duwan howlihii kaa dayacnaa adigoo aanan ebyo tirin hawshii aad bilowday adigoo aan la ballamin asxaabtaada iyo inta howle kaala dhexayso adigoo aad u kala daadsan oo aan safar diyaar u ahayn ayaad arkaysaa adiga oo taagan iridda diyaaraddii aad raaci lahayd iridkaasi gelid mooyee ka noqod ma leh albaab dhinaca dambe ku yaalla oo laga sii baxo ma leh cid diyaaradda ka soo degayso oo aad farriin u sii dhiibto ma leh waxaa muhiim ah inaad ogaato arrimahaasi casuumaadda aad ku safri doontid waxaa kuu soo diray allaah ciwaanka ajalku bixid mooyee ka baaqasho ma leh galka casuumaadda ay ku jirto waa sakaraad farriinsidaha casuumaaddaasi ku soo gaarsiin doona waa malakulmood tikidka aad ku safri doontid waa geeri diyaaradda aad raaci doontid waa handool dalka aad ka dhoofayso waxaa la yidhaahdaa adduun dalweynaha aad u kicitimayso waa aakhiro halka aad gashiinka taransidka ku noqon doontidna waa barsaq garoonka ay diyaaraddaadu cagadhigan doonto waa qabri garoonka ay cagadhiganayso diyaaradda ku sidaa waxaa jooga saraakiil laanta socdaalka ee qabriga qaabilsan kuwaas oo hubinaya in baasaboorka dalkugalka iyo fiisaha aad ku safrayso inay saxan yihiin iyo in kale garoonka ay diyaaraddaadu ku degayso waa mid adiga kuu gaar ah balse saraakiisha joogtaa ee labada ah ayaa qaabilaya qof walba ee soo raaca duulimaadka isaga gooshaya dalalka adduunka iyo aakhiro waa inaad maanka ku haysaa qodobadan saraakiisha laanta socdaalka joogtaa waa malaa'ig tiradoodu waa 2 oo keliya magacyada waxaa la kala yidhaahdaa munkar iyo nakiir waxaana ay ku weydiin doonaan 3 su'aalood oo muhiim ah saraakiisha waxa ay ku weydiin doonaan 3 su'aalood oo haddii aad ka jawaabto aad garoonka uga gudbayso si sahal ah haddii aad jawaabaha ku dhacdana waxaa lagugu xiri doonaa qaybta lagu xiro soo galootiga sharci darrada iyo dambiilayaasha su'aalahan aad wajihi doonto waxa ay kala yihiin dalka aad ka timid yaa boqorka ahaa imaamkaagu kumuu ahaa baasaboor noocee ah ayaad haysataa ilaa aad su'aalahaasi ka jawaabto lama eegi doono baasaboorkaaga iyo dalkugalkaaga inay yihiin kuwa saxaan iyo in kale jawaabaha 3 ah ee aad ku gudbid karto ayaa ah sidan boqorkaygu waa allaah imaamkaygu waa nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haatee baasaboorkayguna waa diinta islaamka marka aad jawaabahan ku guulaysato ayaa munkar iyo nakiir eegayaan in baasaboorka dalkugalka fiisaha iyo boos-ceshiga reservationka qolka aad ka digi doontid hoteelka kaliya ee ku yaala halka aad u safartay waa jannada haddaba iska jir oo isku qaldoomin saraakiisha munkar iyo nakiir waxa ay aqbalaan hal baasaboor kaliya dalkugal hal nooc ah balse boos-ceshigu waa lagu kala duunaa karaa dhaqaalahana sidoo kale marka aad u timaado saraakiisha laanta socdaalka ee qabriga waxaa laga doonayaa inaad haysato socdaalkaabayaashan baasaboorka kaliya ay aqbalaan waa diinta islaamka dalkugalka fiisaha ay aqbalaan oo kaliya waa iimaan rumaynta allah iyo rasuulkiisa boos-ceshiga kaliya ay aqbali doonaanna waa cibaado haddii aad ku guuldarraysato in aad soo bandhigto warqadahaasi socdaalka kuu fududaynaya ee baasaboorka islaamka dalkugalka iimaanka iyo boos-ceshiga cibaado ee ay ku weydiiyaan munkar iyo nakiir waxaa hubanti ah inay weji furan kugu soo dhoweeyaan dhammaan dadka ka gudbaya xuduudda adduunyo ee u gudbaya tan aakhiro waxa ay u qaybsamaan 3 kooxood oo keliya adigana 3daas uunbaad mid ka tahay waxa ayna kala yihiin ahlu janna muslim mu'min ah cibaado la yimid camal suubanna hormarsaday soo galooti sharci darro ah
muslim saadiqay cibaado dayacay camalkiisana aan suubanayn ahlu naar qof aan markiisii horeba muslim ahayn ama caabuday waxaana la ahayn muddada gashiinka tarasadka aad ku tahay xayaatul barzaqa wehelka kaliya ee aad haysato waa camalkaaga haddii uu suubanaa camalkaaga wuxuu ku noqon doonaa mid ku weheliya haddiise uu yahay mid aan suubanayn waxaa laga yaabaa inuu ku dhibo inta ay goorigoor tahay waxaad haysataa fursad aad ku xaqiijin karto himilo dhab ah oo aad ku badbaado marka uu safarkaasi degdeg ah ku soo galo inkastoo haddii culimmada diinta aad weydiiso safarka noocan ah in ay kuu suurayaan ay durbaba kuugu jawaabi lahaayeen waa safar dheer oo sulmiga iyo haraad badan islamarkaana ku sifayn lahaayeen in suudiga cadceedda aakhiro ay mar walba ka sulmi iyo haraad badan tahay silac kasta oo adduunka yaallo haddana haddii aad dadaasho ilaah wuu kuu garab siinayaa in aad sahal ku dhaafto adigoo aan marnaba rarangubiyoon inkastoo safarkani aad degdeg u yahay haddana dheer yahay mar walba wuxuu ka dhow yahay safarka uu qofka tahriibay ku maro saxaraha cadaabta ah ee u dhexeeya liibiya iyo suudaan marka uu qofka ku safrayo saxaraha wuxuu halis u galaa in ay dilaan masas miciyadu u wada soofaysan tahay abrisyo ciidda hoosteeda ku susuma oo aysan ishu qaban iyo caarooyinka waxweerara taasi waxaa dheer qoolaysatada jidka dadka ku afduubta ee ay Soomaalidu u bixisay magafayaasha kuwaas oo dadka dila gabdhahana kufsada kadibna madax furasho weydiista haddii ay duulimaadyadaadi oo dhammi ku saxan yihiin diyaaradda uu malakul mowdka ka yahay duuliyaha waxaad ka raaci doontaa kuraasta maalqabeennada ee business classeska haddiise diyaargarowgaagu qaldoomo in aad booska ka hesho kuraasta danyarta ee economic classeska ayaa adkaanaysa adiga ma ogi da'ad aad jirto balse waxaa laga yaabaa in uu shaydaanku kugu yiraahdo mar walba weli waad yar tahay dib u dhigo isdiyaarinta marka aad weynaato ayaa diyaargaroobi oo cibaadaysan doontaaye waa hubaal sidaasi shaydaanku wuu kugu yiraahdaa naftuna way u riyaaqdaa qof walba ayuu ku yiraahdaa aniga ayuu igu yiraahdaa maalin walba ha isqaldin da'daada iyo qorshahaaguba saamayn kuma laha safarkaasi goorta uu noqonayo da' kastaba jir wuxuu kugu noqon doonaa mid degdeg ah kaa qanciya doodan bal ila eeg duducdan ka mid ah xigmo uu dunidan kaga tegay gabyaagii caanka ahaa ee Qamaam Bulxan Allah u naxariistee Qamaam wuxuu yiri waxaad aadamow maagan tahay adiga iyo maankaagu iyo meel Ilaahay ku marin kala mid weeyaane waxaad adigu miihaalatiyo malaba waa beene waxaad mooday mood baa sokada ka soo mariye Qamaam wuxuu cabiraya sida dadku ay wax u qorsheystaan iyo qorshayaashooda dhami aysan moodka marnaba ugu soo darsan iyo sida markii ay tii Rabbi subxaanahu wa ta'ala u timaado uu qofka isaga dhinto isaga ama iyada oo qorshayaasheedu ka kala daasan yihiin tix kale ayuu Qamaam ku yiri haddii aad inaad taajir tahay tuhunta uurkaaga tadowga xoolaha nin baad tulud ku sii dheer wala in rago tala adduuntaada uun maaha abwaan salaan carabeey oo isagana ka mid ah abwaanada suugaantooda raadka muhiimka ah ku reebay taariikhda Soomaaliya ayaa waxa uu yiri cadad ma laha rijaaladan intay calal ku duubeene oo ay meel cabaar loo qodqoday kaga caraabeene oo camalka mooyee qabriga cidna ugu yeedheen mar haddii ay xaaladdu sidaas tahay maxaa kula gudboon inaad samayso inta aad fursadda haysato si aad ugu diyaargarowdo safarkaasi lama huraanka ah waxaa kula gudboon inaad haysato dhowrkan shay ee ah sahaydii aad waddada ku mari lahayd dhaqaalihii aad meel ku tegi lahayd wixii aad ku noolaan lahayd marka aad degto jannada si aad wax meel u dhigato waa inaad bakaar akoon ka furato bangiga Ilaahay ee ku yaala halka aad u sii socoto ha kaydin lacag aan aakhiro ka socon doonin lacagaha kaliya ee aakhiro laga isticmaalo ama ka soconaya waa taqwada haddii aad og tahay in durba xisaabta lagugu leeyahay ay ka badan tahay midda aad baraagta ku kaydisay weli fursad ayaad u haysataa inaad ku bixiso xisaabaadka kugu qoran qaansheegatada invoice ama factor ee laga rabo waxa la ogol yahay oo kaliya inaad iska yaryareyso oo aad maalinba waajibka laga rabo si raaciso sanduuq yar dhowr boqol oo istikfaar ah ama tasbiix isugu jira inta aanan gunaanadin qormadeeda yar ee aan adiga ku hibeeyay waxaan doonayaa inaan kula wadaago xigmad kooban oo ku jirta suugaan aan ka soo xiganayo Maxamed Cabdi Aamaguul taasoo ina tusaysa jidka ay tahay in aan marno haddii aanan doonin inaan aakhiro ku noqono soo galooti la geeyo xabsi ama xero qaxooti tixdu waxa ay leedahay sida tan
jamacuu quraan iyo markaan jalaca soo eegay saddex buu ku soo jaray jaliil jiinka hadalkiisa jidka hore islaam uun ku joog hana ka jeesjeesan jareeradii adduun aakhirana reer jannaad noqo jid labaadku waa jiimka diid gaalnimona jiido nolol jaban adduun aakhirana guri jaxiimaade ugu dambayntii haddii aan kaa naxiyo iga raali noqo ujeedka waxa uu ahaa baraarujin haddiise aad qormadaydan u aragtay inay tahay muhiim waxaan kaa codsanayaa in aad la wadaagto asxaabtaada ama dadweynaha intii aad ka gaarto darbo intuusan daarku kaa buuxsamin